balbal waxa uu ahaa ninkii kobciyey ee faafiyey dhaantada iyo ciyaaraha kale ee la midka ah dhaantada ee dalka Soomaalida laga yaqaan muddo imika laga joogo 34 sannadood waana markii ugu horeysay oo hadal waraysi ah oo aan ka qabanay balbal uu ka baxo laanta af Soomaaliga ee BBC-da markaas anigoo imika idin bilaabaya hadalkaasi waraysiga ah ee ninkaas la yaab kale ee balbal waxa aan jeclahay in aan akhyaartana dhageysata xusuusiyo in balbal uu heesaha dhaantada ah ee uu qaadi doono oo uu tiriyey muddo imika 34 sannadood laga joogo uu qaarkood ku soo qaadi doono magacyada qabaa'ilka Soomaalida qaarkood isagoo tilmaamaya qaayaha iyo wanaagga ay leedahay haweeney Soomaaliyeed oo balbal mar jeclaatay markaas waxa ay ila noqotay haddii aan magacyadaasi qabaa'ilka ka gooyo heestaasi in ay qiimo beelayso markaas waxay ila ekaatay in aan ku daayo heestaasi magacyadaasi qabaa'ilka mar haddii heestaasi la tiriyey muddo imika haatan 30 sannadood laga joogo waxaanaan markaas balbal weydiiyey goortuu dhaantada bilaabay waxaanu yidhi waxaan bilaabay 44kii markaa waxaan ka bilaabay jigjiga qolada dhaantada ayuun baan iska raacay oo muddo badan baan ayaamaan dhegaystay sida ay u soo go'ay sida xubnaheedu u dhacayaan sidaas ayaa aan ku bilaabay marka sidaad u bilowday sidee bay ahayd ma dad ku qaadayaad maqashay ma dad baa kuu sheegay maxaad qabanaysay markaas cayaaraha kan bariga laga tunto ergaabiyo dhulka ayaan ku ahaa xariif bulbul ku ahaa marka cayaartii baanu cayaaray taayadii waana lagu soo ordi jiro lagu soo ururi jiray habeenun baanu ka cayaaray jikiyadaasoo markaasaa naloo iman waayo agtayada dhaanta lagunto dadkii oo dhammi dhaantadu u jabay markaasaa wixii horaad baratoo dhan waxa maaha alla ilaha tan waa inaad barataa halkaasaan ka bilaabay oo bartay marka intaadan dhaantada bilaabin ciyaarahaad ku qaadi jirtay baad ciyaari jirtay maxay ahaayeen batar hollebe annahaybsan jilib rag ciyaarahaasay ahaayeen marka batarkii wax ma ka xusuusan tahay simaan wax xusuusnay waxaan ka xusuusnahay 3 waa dhalaashaa dhaameelka ciideed iyo dhiimow sacaan dhalin iyo ninka dhabeel u dheelmaday 3 waa gudaysaa geesi geeli lala tegay garmadooda ficil galay aarku waa gudayaan 3 waa gurguurtaan cadarkii cidgeedii iyo colku waa gurguurtaan 3 waa madowdahay nin magaalo lagu dhacay nin magaalo guursaday iyo meydku waa madowdi saasaa loogu heesiyey ma xusuusan tahay dhaantadii kuugu horeysay ee aad ku qaado amba aad ku dhaantaysay midkii ugu horeeyey wuxuu ahaa tan iyo jibjigiyo jimiyo baajifaar jawaabtaadi baan u jeel qabayo naaji dheer nin maro jilcaanahay yaanu adigoo jiidin kama joogi kare sidee jiifku kugu soo dhacay midkaas waa markii ugu horreeyey marka ma inan baad u tirinaysay inan baan u tirinay marka inantii ma maqashay arrintaa way maqashay waxay tidhi jawaabtaadi baan jidkoo maarayo heleelehin balow wiyaalaahdo waar ma jiifo ewojibaysnahay midkaas igu jawaabtay marka balbal xaggee baad ku dhalatay adigu nawaaxiga erigaabo wareeg meesha la yaabo waxaan maqlay maraad Cerigaabo joogtay oo aad dhaantadaas ku qaaday dadka reer Cerigaabo 2 meelood ayay u qaybsameen meel ku raacday iyo meel muxuu ahaay ku diiday bal looga waran qisadaas waa la soo masaafuriyay markii Burco iyo Hargeysa iyo meel banaaga badan lagu furay dhaantadii ayaa la soo masaafuriyay Cerigaabo la keenay Cerigaabo ay iskiraadeen casarka hooyo warween ma iyo magaalada waa magaalada ku dhashay hal ay daay may baalay dadkana ka saaraysa alaadiis marka hees baa ka tiriyay eelkan waan ku dhasho maxay kare sida Cerigaabo yeelahay colkaygii ciidankii maahayo caweyskayse xinayaan ee sida Cerigaabo yeelahay aku ceelka dhagax buur iyo cirifkii qalaafood iyo carabtaan la looli jiriyo furaash la cabeeyadoo cudbeeyo hadar cuudiyaan marsad iyo alla cayn baxayn maayoy sidaan Cerigaabo yeelahay
taa markaana magaalada laba u kala jabtay oo laba safna aanu raacay safna wixii ninka laga jooja safkaygii baa ku yeeshay halkaasaa layga qaaday oo la yidhi xeraynina xor weeye meesha doona wuxuu doonaha ka tiriyo ninkiina aa ka soo baxsanayaan qabsanaaga casho maxaad yeeshay dee muddo yar baan joogayoo joogi kari maaye waxaan ku noqday burco layga soo masaafuriyey marka burco markaan soo galay waxaan idhi ninkii wax dhaqdaa u dheelmaanaye wax dhaqdaa u dheelmaanayeed buuxaanay afartooda dhaadheer iyo dhuloy dhalintii daboolaydiyo senga dhumuuqdu weynaatiyo maan dhimanine dhul baan jiray baalbaaldhinay bay yidhaahdeen oo dhulkii ka tag bay yidhaahdeeney sidii dheelnuus ma soo dhaacay markaan isu sheegay magaaladii marka codkaagaa fiican iyo midhahaas la yaab kale ee jacaylka ahaa ee dhaantada ahaa aad baad uga faa'iidaysatay dumar badan baa kugu raacay dhibaatooyin badanna waa kaa raaceen bal hadda arrintaa nooga waran waxa weeye markii aan soo galay magaalooyinka ee naagaha badan lagu furay waxaa dhacday dhallinyarada dareewal karaani booy koog wixii dukaanlaha suuqa jooga iyo carruurta iyo naagihii bay raacay tagiga adag idigama adka markaa wixii odayaal ahaa unbaa ninka ka naga khaarisiyo naga kaxayay lahaa mar baa lay nin kale ha loo doono bal ninkan baaciya markaa waan hordhigtay waxaa heesoo dhammaa baan hordhigtay lagiyo boqol ninoo walaalaahiyo lagiyo boqol kaloo walaalaahiyo nimaan lubigiisu ficinayo nilaahi ninkii wax ku odhan ninaad islugoyso mooyaane midkee laabadaah oo wanaag badanay lamaalaha awraad rarato jarxada lagu laalo laameeyo dameeraha kooda layliya minaad islugoyso mooyaane midkee laabada wanaag badanay ninkii baana hays magaalo bartiyo ninkii bogacaanaheed dhamay nin bawsaday heesta beerguba iyo bawaagta ninkii ku daabaqay minaad isbambaanin mooyaane midkee laabada wanaag badanay bilaadka intaan ku noolahay qofkii balwaqaada wow been intaan bilsintii bayaad ku qoraan baalbaal ku saxeexay beerguba tan iyo barma taasaa markaasi ku horjoogtay nin walba hordhigtay dhaanto la yaab leh marka wax kuu soo baxaa la waayay yaa soo baxaya baalbaal markii hargeysa lagaa musaafiriyey cerigaabo iyo burco iyo dhulkaasaa tagtay markaasaad dhaantada la yidhaaho ana dheer oo la yaab lahayd aada u tirisay gabadhii la oran jiray aamina laakiin bal intaadan dhaantada ii bilaabin ogaantaa imisa dumara ayaa lagu furay ma yara dhowr iyo 20 waa gelayaan haddaanay kaba badnayn aana dheertanna markaan galay nin unbaa intuu hinaasay iska taajiro jannaale lacagle ah ayaa wuxuu maqlay baalbaal baa sekadiina soo maray inayoo qurux badanna wuu qabaa waa in lacagle wuxuu ka hinaasay sekada baalbaal baa soo maray marka inantii aqalkii wuxuu kaga xidhay dusha qoful kursi laanjeeru iska hor dhigtay wixii ninkaasu iyo arladaa soo maray waar ninka kanu gurigaaga miyuu yiqiin hargeysa meel kuga jiro meel kaga jirto maysaa ku yiqiin adun baa isxeeleeyey waa ku sidee marka cadhadii baana fasax sooba qaatay bileys ka soo qaatay aqalka miyuu ku toosan hortiisaba ayaa ka cayaaray ana dheer halkaasay ka soo baxday iyadii baan bilaabaya alifkiyo alkaaftiin iyo alkawnayn iyo ilaasha arbacunka yaasiinki iyo eelkii qur-aankii 14 iyo 100 ilaahay baroon aslaay akhrigooda ku gelay maishanine baay garo asliyayaashaadada ruma haddana eray kaleeba waa beenay
taniyaadaniyo albaabka shawiyo irdaha reer ismaraa ka soo roganiyo alaalaha beeralaydane inta absad warligu dego waadeenka ogunagayaa loo aslayra geela foofsada arbayowga ciisa ama ubaxa samaroon awal iyo isaaq bariyo ishay gebile yidhaadahane arbayowga ciida galeedaqda ku dhowdaadniyo arab iyo ayuub siman iyo abaryoonis tamar weyn iyo arbaydil habaar xabuusheey iririyo abgadawiyo idilkii mareexaan khaalid u amran aan la egayniyo idilkii yaxyood garan iyo idil ooga wiileeyey ugaasyada reer hirshooraaye misaa ubaxaa ma jeerteene misana asliga dashiishaaye misana warsan geliga hoog jira ikhyaarta iyo intaan tiriya aslay amarkoodu taan yahay kuwa amarkoodu taan yahay aslay waa inaad ogaataa ayaamaha khayr kale ay dhaalato inkaar male aaminoo kalay asliyey ubaxooga wiileeyey ma eegine eray kaleetona sidii oryanlaynka gaalada oo tan iyo yurub loo agaasimay oo albaabkaas ugeysna loo furay ina reer ugaasha dhasho amar weynaanahadoon naar waxaaga dooni amina namiyaad arrintaa ogaydehne asiyey ubaxooga wiiley ma egineeley kaleetona albaab daran bay ku oodeen asaageedna waa u dideen naa khiyaartiyo qaadiga orado naa kaco ashtakood allah kule midhaha la yaab kale markii aad u tirisay aamina maxay yeeshay? aamina cayaartii ba ka soo qayb gashay odagiina dabad buu dhigtay laanjeer oo wixii naajidley buu jirtaa waxay ka dhacday xagga dambe ka dhacday aqalada sii jeeda u dhacday oo dabad bay soo marto cayaartayba ku jirta aamina gurigii ma ku noqotay reerkeedii markay xagee sida noqoto aniga aamina ba xidigaan maray xagee tagteen dhulka iyagaan xumay de soo qofkii waxaa soo dhamay anigaan arkin oo aqoon lagaga sameeyey maaha aawaday ama aniga aawaday loogu sameeyey bas guursateen wallaahi adigu naagti nin baan u dhisay waxaan wadaba nin baan u dhisay ninkiina imika carruur bay u leedahay marka intii ay guursatay wax dhaantaa ma u tiriso ama xaqeeb markaa wey ninkii odayga ahaa ee gabadha qabay wacdaraad ku dhigtay kaasi waa xaalatay soo isagu isuma keenin waxaad dhegaysanayseen qaybtii koowaad ee hadalkii waraysiga ahaa ee aan magaalada muqdisho kula yeeshay ninkaas la yaabka leh ee la yidhaaho baalbaal qaybta labaadna ee waraysigaas waxaad maqli doontaan isniinta dambe maantana halkaas haynoo joogo.